kalfadhigii 24aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagu lafaguray hanaanka wada shaqeyneed ee hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah iyo xukuumadda Soomaaliland waxaana golaha wasiiradu warbixintii amniga ka dhageystay wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dood dheer ka yeeshay wada shaqeynta hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ee ka howlgala Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay isla qaateen dib u eegista iyo qiimeyn buuxda in lagu sameeyo habka iyo hanaanka hay'adahaasi ay uga howlgalaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo loo marayo sharciga iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ka duulaya horumarinta iyo iskaashiga shacabka waxay ku dhiirigelinayaan bulshada Soomaaliland hirgelinta barnaamijyada iskaa wax u qabso ee kobcinaya adeegyada arrimaha bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland